walaalo badan baa markay maqlaan website baa la samaynayaa ama website baan samaynayaa website technology wax aad u adag bay moodayaan waagii hore waa laga yimid maanta wax website samayn karaya qof kasta waxa website samayn karaya adiga waxa website samayn karaya qof kasta oo inaga mid marka maadka website soo dhawaada saaxiibayaal ku soo dhawaada channelkeena warsamo bade magacayga warsamo bade waxaan ahay digital entrepreneur ka ganacsada suuqyada e-commerce sidoo kale wacyigeliye iyo dhiirigeliye ku dhiirigeliye faca koraya siday karaankooga iyo potentialkooga ay u maximize gareyn lahaayeen insha Allah hadii la helaado muuqaalkan waxaan ugu wadaagi doonaa maxay muhiim u tahay inaad website u samaysid sidee website loo sameeyaa iyo sidee baad ayaad lacag uga samayn karaysaa website ruuxantii mawduucan waa mawduucyada ugu jecelahay weeyaan muddadii 5 sano ugu dambeysay waxaan ku jiray sidee website loo sameeyaa sidee wax loo dhisaa marka e-commerce la joogo e-commerce saddex xirfadood baa muhiim ah inaad yeelatid ama qasab waa kuwa e-commerce kama shaqeyn karaysid e-commerce ma aha crypto oo wallet yar intaad gelisid aad baasha waxaynaysaa wax fadhi u baahan oo wax shaqo u baahan marka e-commerce aad ku jirtid waa inaad website samaysaa waa inaad Shopify store dhistaa waa inaad kan samaysaa waa inaad designing ki garanaysaa waa inaad social media marketing ki garanaysaa waa xirfado weeyaan xirfad kaliya tama waa xirfado way muhiim ay u tahay maanta xilligan ay nool lahayn inaad website yeelatid ama platform aad leedahay aad u yeelatid marka koobaad waxay kor u qaadaysaa caliberkaaga ama qofkaad ahayd ama professional wallkaaga ay sare u qaadaysaa marka aad tahay maanta qof website leh maalin dhaweyd oo shaqo shaaciyay saddex xirfadood dad garanaya walaalo ilaa 6 qof ayaan qaadanay inta kalena insha Allah hadii la guulo badan baan rajaynayaa dhawaanna insha Allah hadii la helo wax fiican oo wanaagsan baan soo wadaa marka dhalinyaradii aan qaatay dhalinyaro waxay hayeen dhamaantood garanaya sida website loo sameeyo mid kale clear tami gareyn in website la sameeyo iyaga waxay sameysteen website portfolio oo shaqadoodii iyo waxay qabanayaan in service-kooga ay ku soo bandhigeen marka professional dhowr kun oo fariimood baan helay laakiin intii ugu muhiimsaneed kuwaas baan ayaan idhi soo marka waxaan isweydiinay maxaad u dooratay oo dadka kale u dooratay muuqaalkan muhiim buu ku yahay adiga marka haddaad graphic designer tahay haddaad professional wall kale ku jirtid haddaad qof inuu dunida si u daneynaya inaad tahay aad buu muhiim kugu yahay sababta labaad ee maanta aad tahay inaad website u samaysatid maanta dhamaantii social media wada leenahay laakiin website wuxuu ku siinayaa meel aad fikradahaaga ku gudbin karaysid meel dadka like minded ka aad ku soo jiidan karaysid maanta SEO baa jiro search engine optimization adduunka aad baa ayaa loo tixgeliyaa Allah musta'aan qoraalka marka waxa jira dad intay blogs qoraan qoraan ka sameeyo 10,000 20,000 30,000 bishii ka sameeyo qaarkood ba milyan ka sameeya sanadkii $1 million ka sameeyo kaliya qoraalka ay qorayaan waa talabaad oo ah inaad lacag ka sameyn karaysid maanta haddaad website yeelatid lacag baad ka sameyn karaysaa waa saddexaad waa xirfad aad ku shaqaysan karaysid oo maalintii dhaweyd sida website-da loo sameeyo waa waxaan shaacinayna weyn waa waxaan u baahneen inaad website garanaysid waa sida xirfad inaad xirfadaada iibin karaysid dad aad lacag ku charge gareyn karaysid saacadii 20 30 40 50 lacag inta doonteed ku charge gareyn kartid marka sababta bay muhiim u tahay maanta inaad baratid website dhisidu marka website dhisid laga hadlay marka way kala duwan yihiin website-adu shaqooyin badan oo kala duwan bay kala qabtaan any industry haday e-commerce industry noqoto haday blogging industry noqoto haday ay industry kastood maanta istiraadid industry-gaas oo muhiim waa inay website yeelataa marka website hadaad u samaysid waa lacag ayad ka samaynaysaa sidee ayaad website u samayn karaysaa platformyo badan baa jira oo kala duwan WordPress baa ka ugu weyn waxoogaa ugu adeegaya marka la sameynayo oo u ka yar adeegayad muusamaadka oo isaga laftigiisa teamam dad hore soo sameeyeen baa jira oo aad ka sameyn karaysid laakiin u ka yar adeegaya waxoogaa waxa jira Wix iyo Squarespace labadooduba waa laba aad iyo aad ay u fududahay inaad website-kii customize karaysid waayo inta tagtid baad ka badbedelaysaa waxaaga baad ka badbedelaysaa by default waad ayaad ku sameyn karaysaa website qurux badan oo aad iyo aad u qurux badan marka Squarespace baa jira Wix baa jira Shopify baa jira Shopify iyagu waxay diiradooda saaraan sidee baa qofku online business u samaysan karaya marka waxaan dhalinyarada ku barna sida dropshipping loogu sameeyo sida e-commerce loogu sameeyo waa faca koreya ay dhalinyarada ku bartaan sidii website alaab aanad lahayn sida ugu iibin lahayd Allah musta'aan Shopify ay iyagu fudeydiyaan
marka faca koreya ayaan ku barnaa step by step sidii aad Shopify store ula soo daadegi lahayd sidii aad website ku customize gareyn lahayd sidii aad best product u soo heli lahayd sidii aad u marketing gareyn lahayd sidii aad graphic design lahayd all xirfadahaas oo dhan faca koreya ay dhalinyaradu ku bartaan Shopify isagu hadii e-commerce aad sameynayso waa ugu muhiimsan weeyaan marka kuwan kale noqotay intiina rabtay inay hadda blogging samaystaan ama portfolio ay samaystaan ama social media influencer ee raba meel qof wixiisa ay ku haystaan ama print on demand raba inuu ka samaysto Wix iyo Squarespace waa laba aad u fiican oo aad u fudud I think Wix inuu 24 yahay baan maleynaya Squarespace waa 19 meelaas baan maleynaya laakiin Wix bay kala fiican oo anigu ku samaystaa marka aad bay u fududahay maanta inaad website qurux badan oo proper samaysid xirfadahaasna inaad dhammaantiina barataan sabab u dhaqsiyaa badan inaad u barataan ayaa aad iyo aad u muhiima marka website-daas waxay u baahan yihiin domainkaas inta badan anigu ardayda faca koreeyana waxaan kula taliyaa inay ka iibsadaan GoDaddy aad buu uga fiican yahay haddii security ka noqoto hadday caawinta noqoto haddii ay waqtiga noqoto marka GoDaddy aad buu uga fiican qiimaha aad buu jaban yahay $14 baad ayaa sanadka dhan laga qaadaya $14 waa habeenaad casho u tagtay marka dhamaanteen muhiim bay noo tahay inaan website samaysano muhiim bay noo tahay ama blog inaad qortid ama affiliate ku samee ama dropshipping ku samee ama e-commerce site ku samee ama ganacsigaaga u samayso ama portfolio u samayso muhiim bay noo tahay maanta xilligan ay noolnahay aad bayna u fudud yihiin dhamaantood inaad samaysatay insha Allah hadii la yiraahdo muuqaalada soo socda waxaan nagu tusi doonaa sidee ba Wix loo sameeyaa sidee ba Shopify loo sameeyaa sidee ba WordPress loo sameeyaa sidee ba domainkii wax oo dhan la isugu wada xidhaa ayaan insha Allah hadii la yiraahdo nagu tusi doonaa dhamaantiin waxaan nagu dhiirigelinayaa inaad hadda bilowdaan sidii aad u baran lahaydeen website haddaad Wix iyo tagtaan aad bay u fududahay insha Allah hadii la yiraahdo muuqaal tutorial aan soo sameyno step by step sidii aad website u dhisi lahayd sidii aad domainka u iibsan lahayd sidii aad waxayn lahayd Shopify iyo Wix iyo WooCommerce dhamaan linkiyada hoosta baan soo dhigaya insha Allah hadii la yiraahdo guul baan rajaynaya muuqaalkan waxaan insha Allah hadii la yiraahdo koorsada siin doonaa laba qof oo kamida walaalaha channelka ku xiran insha Allah hadii la yiraahdo like baad saaraysaa share baad ku dhufanaysaa subscribe baad oranaysaa commentiga insha Allah hadii la yiraahdo waad ku qoraysaa dadka commentiga ku soo qora channelka subscribe gareeya ayaan insha Allah hadii la yiraahdo laba qof ka dooran doonaa laba qof aan ka dooran doonaa insha Allah hadii la yiraahdo waxaan rajaynayaa inaad ku guuleysan doontid dhamaanteen waxaan u baahanahay qof ina dhiirigeliya qof ina challenge gareeya qof inagu taageero waxyaabaha inuu rabno hadii aanad adigu qofka helin adigu qof u noqo hadii aanad adigu qofka helin adigu naftaada u noqo waa inoo iyo muuqaalka xiga assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh